Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maantana wuxuu ku saabsan yahay qisada geesigan geesi miyaan dhahnaa mise doqon. Si welibay ahaataba idinka ayaa kala saaraya in ninkan uu doqon yahay mise uu geesi yahay. Balse inteenaan si toos ugu gudagelin muuqaalkeena maanta, fadlan like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga. Wiilkani oo dhalinyaro ahaa laguna magacaabo Aaron Ralston wuxuuna ku dhashay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Taariikhdu markii ay ahayd 27 bishii Oktoobar sanadkii 1975. Wiilkan yaraantiisa wuxuu aad ugu fiicnaa dhanka waxbarashada, sidoo kalena wuxuu xiisayn jiray mar waliba inuu tago goobaha halista badan. Gaar ahaan wuxuu si aad u xiisayn jiray koridda buuraha aadka u dhaadheer, ilaa markii dambe uu buuro korista ku noqday qof professional ah. Wuxuuna gaaray heer intuu kaligiis ka baxo buuraha kuwooda ugu dhaadheer aadkana ugu halista badan, weliba isagoo keligiis ah, qof kalena aysan la socon. Mar walibana wuxuu soo laaban jiray isagoo caafimaadkiisa aad u wanaagsan yahay, xitaa sida caadiga ah. Dadka professional ku ah korista buuraha, dadka xirfadda aadka u dheer u leh korista buuraha, markii ay korayaan buuro ay halistooda aad u badan tahay, waxay u baxaan qaab iskooxaysi ama qaab guruubis ah. Aaron markii uu muddo aad u dheer kusoo jiray korista buuraha, waxaa u suurta gashay inuu aasaaso koox badbaadiyaal ah. Kooxdan shaqadoodu waa in dadka aan si fiican u aqoonin korista buuraha ama ku cusub korista buuraha inay kasoo badbaadiyaan halisaha ay geli karaan, iyo inay dadka baraan qaabka loo koro buuraha. Maadaama Aaron uu mar waliba jeclaa in keligiisa uu bareero halis waliba, in mar waliba uu bareero halista buuraha kasoo gaari karta, dadku waxay ku dhihi jireen war dhaqankan iska bedel oo noloshaada halisa gelin, iskana daa buurahan aadka u dhaadheer aadkan u halista badan la aad kaliga korayso. Xitaa haddii aadan iska dayn karin, qof uunu sheeg markii aad baxayso ee keliga adigoo cidna la socodsiina iska bixin. Aaron haddii qof uu ku dhow hadalladaas wuxuu ugu jawaabi jiray maya in abtiyaalo waxaas idinku u baa taqaaniin, anigana buuri korista xirfad ayaan u leeyahay, arrinkaana wax dhibaataa kalama kulmi doono. teeda kalena haddii aan qof u sheegay inaan u socdo mid ka mida buuraha ugu halista badan anigoo keligayga ah, qofkaasi muxuu ka faa'iidayaa? Anigana waa maxay faa'iidada igugu jirta inaan u sheego qof meesha aan aadayo? Isku soo duuduuba hadalkiisaas oo idil wuxuu ula jeedaa muhiim ma ah inaan qof la wadaago ama aan u sheego meesha aan aadayo. Wuxuu waqtigu isguraaba waxaa la gaaray maalin uu isbedel weyn ku imaan doono gebi ahaanba noloshiisa. Maalintaasina waxaa dhacday in xilli subaxa, maalintuna ahayd maalin sabdiya, sanadkuna ahaa 2003, in Aaron sidii caadadiisa ahaydba in keligii uu u baxo goob buuraley ah oo aadna u halis badan. Goobtaasi oona lagu tilmaamo qofkii tagay inuusan nabad uga soo laaban. Goobtaasina waxaa lagu magacaabaa Blue John Canyon, isagoona watay boorsada dhabarka lagu qaato oo ayna ugu jireen qaar ka mid a agabka lagu koro buuraha iyo saadkiisa. Aaron markii uu soo gaaray meeshii uu doonayay ayuu damcay inuu hoos ugu sii dhaadhaco buurta, wuxuuna gacanta ku qabsaday dhagax saarnaa meel gees ah. Dhagaxii ayaana hal mar intuu la taraaraxay hoos la aaday. meesha uu dhagax saarnaana waxaa ka hooseeyey 2 buurood oo aad isugu dhowaa. Aaron iyo dhagaxiina labadaasi buurood dhexdooda ayay ku taraaraxeen, waxayna sii taraaraxayeen ilaa dhagaxii uu ku istaago meel dhexe. Aaron hadda dhinacyada waxaa ka xiga 2 buurood oo aad u dhaadheer. Aaron markii uu damcay inuu kor u koro ama hoos ugu dhaadhaco buurta, wuxuu dareemay in gacanta ay wax ka celinayaan. Wuxuu arkay in dhagaxii weynaa uu gacanta ka saaran yahay. Aaron isagoo la wuxuu sameeyay ayuu maalintii koowaad ku qaatay halkaasi, balse maalintii labaad ayaa waxaa kusoo dhacday fikradaasina waxay ahayd in dhagax gacanta ka saaran uu qodo. isla markii ay fikradaasi kusoo dhacdayna wuxuu la soo baxay midi yar uu watay si uu ugu qodo dhagaxa. maadaama uu dhagax aad u weynaa, midida uu haystana ay aad u yareed, qorshahaasi wuu ka fashilmay. maalintii saddexaadna waxaa ka dhammaaday. wuxuu cuni lahay wuxuu cabi lahayba, maadaama uusan haysan wax hoos ah, qoraxda ayaa gubaysay. isla maalintaasi saddexaadna wuxuu bilaabay Aaron in uu cabo kaadidiisa si uu uga go'o haraadka daran. maalintii afraadna Aaron waxaa kusoo dhacday fikrad kale uu halkan uga xoroobi karo. fikradaasina waxay ahayd in gebi ahaanba uu ka takhaluso gacantiisa, isagoona doonaya in si geesinimo leh uu gacanta isaga jaro. ayuu la soo baxay mididii yareed uu watay, balse markii uu xoogaa yar ku jaray maqaalka ayuu dareemay in midida uu watay aysan goyn karin lafta gacanta, balse ay jari karto hilibka iyo maqaarka gacanta. maalintii afraadna sidaasi ayuu ku dhaaftay
saartay isagoo ka fikiraya qorshihii kale uu halkani ugu bixi lahaa, balse maalintii shanaad ayuu ku fikiray in lafta gacanta uu jebiyo si ay ugu fududaato inuu iska jaro gacanta, islamarkaasina wuxuu bilaabay in gacanta marba dhinac uu u jiido si ay u jabto. daqiiqado kadibna wuxuu gacantiisa jiijiida waxa u suurta gashay inuu jebiyo. Markii uu ku guuleystay inuu jebiyena lafta gacanta, wuxuu la soo baxay mididii yareed uu watay, wuxuu dhammaystiray gacantii wuuna iska jaray. dhiigga aad ku badan ee ka baxayena wuxuu isaga xiray mara yar uu watay. intaasi kadibna Aaron wuxuu bilaabay inuu kor usii koro buurta. dadaal iyo xanuun dheer kadibna waxaa u suurta gashay inuu ka baxo godkii uu kusoo dhacay kadib markii uu ku jiray 127 saacadood. Aaron markanina waxaa u dhimay socod aad u dheer si uu u gaaro meel ay dadka dhow yihiin, balse Aaron markii uu wax yar sii socdayba wuxuu arkay dad ku noolaa agagaarka wadadii uu ku socday. durbadiina wuxuu u dhaqaaqay dhankii ay dadka ka jireen. markii uu xaggooda soo gaarayna wuxuu weydiistay caawinaad, isla markiina dadkii waxay u keeneen biyo si uu u cabo, waxayna geeyeen isbitaal si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad. Aaronna markii isbitaalka la keenayna dhaqaatiirtu waxay sheegeen 25% dhiigga jirkiisa ku jiray uu ka baxay. dadaal dheer kadib ay dhaqaatiirtu ku dadaaleen Aaron uu caafimaaday. kadib markii ay dhacdadanina ku dhacday, Aaron iska muudaynin korista buuraha, taasi cagsigeedana wuxuu dhiirigelin ka sii qaaday dhibtii soo gaartay. Aaron gacantii uu iska jarayna waxaa loogu bedelay gacan macmala. Aaronna dhacdadani ku dhacdayna wuxuu ka qoray buug uu ugu magac daray 127 saacadood. sidoo kalena dhacdadani waxaa laga sameeyey filin lagu magacaabo 127 saacadood. ugu dambeynna waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalkeena maanta. fadlan haddii uu ka anfacay muuqaalkan like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.